asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay dhammaan asxaabteyda ku xiran janaalkeenna. asxaabay soo dhowaada marka hore. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo fundamentalkii ayaanan weli ka dhammaanin. saas awgeed marka waxaan rabaa inaan ka hadlo sidee ayaa checkmate loogu sameeyaa adigoo haysatid one rug. so waxaa horta lagama maarmaan ah inta aanan marka hore aan stockfish aan la dheelin oo anigoo hal rug ku haysto si aan idin tuso marka hore, laakiin se sharaxaad yar aan idinka siiyo sida loo sameynayo checkmate-ka. marka hore horta waxaa qasab ah boqorkan dhexdan asoo taagan macquul maaha marnaba in mataqaanaa checkmate lagu sameeyo. waxaa qasab ah side of the board in la geeyo, ama sida u taqaanaan 8 ranki ama 1 ranki or sidadkan kale in la geeyo. geesahan yani geesahan waa in la geeyaa. for example haddii uu boqorka geeskan tago qalcadana eesaan oo kale aan ugu xiro boqorkeygana halkan taagan yahay, waxaan awood u leeyahay haddii aniga movekan leeyahay halkan inaan checkmate ku sameeyo, sababtoo ah boqorkan inta ma ka bixi karo, intana kama bixi karo, intana kama bixi karo. boqorkeyga ayaa block gareeya halkaas, intana qalcadii ayaa ka weeraraysa, sidaas wuxuu ku yahay checkmate. sidoo kale haddii uu geeskan yaalo for example qalcadeedana halkan ay taalo oo waxay noqonaysaa iyadana checkmate, inta kama bixi karo, intana kama bixi karo. laakiin haddii uu boqorkan tusaale ahaan yaalo halkan oo kale, halkan oo kale hadduu yaalo marnaba macquul ma ahan in checkmate lagu sameeyo ilaa iyo boqorkan la geeyaa geeskan, ama qasab ma ahan geeskan xataa way noqon kartaa. tusaale ahaan halkan ayuu la yaala checkmate, halkanas easy halkaas checkmate lagu sameeyaa. saas awgeed inta kama baxo, inta kama baxo, inta kama baxo. marka trigga aan idin tuso marka loo geynayo waxaa qasab ah marka la geynayo trigya yar ayaa la isticmaala. marnaba boqorka kama ogolaan doono inaad geesgeysid, laakiin adiga laga rabaa inaad ku qasabtid. so position aan iska dhiganaynaa oo tusaale ahaan boqorkan dhacda iska dhig, waxaan la dheelaynaa stockfish. continue here, stockfish aan la dheelaynaa. so stockfish 8 waaye, annaga caddaana wadanaa. so waa tahay waa soo galnay. marka hadda stockfish la dheelaynaa waa stockfish 8. horta boqorkan si aad geeskan ama mataqaanaa geeskan ama sidoo kale geeskan intaas waa inaad mid ka mid ah yani geesahaas waa inaad geesid. haddii uu dhexda taagan yahay waxaan kugu yiri marnaba waa impossible inaad checkmate ku samaysid. saas awgeed marnaba marka boqorkan kaama yeeli doono inaad checkmate uu geeskaas tago si uusan checkmate u haleelin. mar walba wuxuu isku dayi doonaa inuu dhexda ku wareego. so waxa ugu horeeya aan sameynayno waxaa waaye wax lagu magacaabo boxing, inaan horta space badan aan qabsano. saas awgeed waxaa space badan aan ku qabsan karnaa inaan horta qalcadda geyno meeshaas oo ah b4 whatever uu dheelo waxaa waaye. so wuxuu usoo socda marka inuu qalcadeeda qabsado. okay, ani boqorkii hore usoo wadanaa marka maybe inuu boqor qalcadeeda ku dhago stockfish. so wuu laabtay halkan. marka trigga ku jiro ila fiiriya, halkan trigga ku jiro. haddii boqorkan aan rabo inaan dib u celiyo waxaan sameynaa wax lagu magacaabo waiting move. waiting move sababta uu sameyn doono waa idin sheegi doonaa. waiting move aan sameynaa haddii uu soo laabto qalcadda xagga saara si dib u dago. saas awgeed wuxuu ku qasbiya marka aan mar allaale markii labada boqor saan isku beegmaan no option waaye. haddii aan inta check ka dhaho waa ina dib u dagaa, inta ama saddexdan waa inuu mid aadaa. so boqorkeyga hore usoo wadanaa markaad leh. waa tahay boqorka marka hadda waxaan ku qasabnay inuu hadda one step dego. bal fiir hadda boqorka inta haysano waxaan haysanaa 1 up to 5. waxaan noo haray 1 2 labadaas kale inaan ku darno si aan boqorka gadaal u geyno. haddii marka waiting move sameynay sababtoo ah boqorka ayaan rabnay inuu dib noogu soo noqdo, haddii uu hore u socdana inaan raacno. so haddartaan waiting move ma baahin, asigaan raacayna. hadduu soo laabtana sidee ayaan yeeli doonaa oo halkaas ayaan ka saari doonaa. okay, waan raacaynaa. haddii uu soo laabtana sidii aan samayn doonaa xaggaan ka saaraynaa. waa tahay dib u dage, waa ka faa'iidaysanaa. marka waxaan ku xiraynaa qalcaddeena. hadda waxaan haysanaa 6 ilaa 6 annaga ku dhegan boqorka saasaan ku haysanaa. okay, boqorkeyga hore u soo dirjinaa maybe xagga inuu aado. so hadda marka
meesha wait and move lagu sameynaa waa halkaan oo kale waxaan sameynaa wax lagu magacaabo wait move sababta u sameynaa waxay tahay boqorka hadduu soo laabto si aan xagga u dhigo hadduu soo laaban waayo xagga u baxana inaan raaco haddii geeskaas u tago anna halkaan aan la istaago so wait and move waa tahay xagga u baxay waa raaca haddii geeskaas u tago xataa waa la taga ilaa intuu ka soo laabanayo si aan ugu qasbo inuu gadaal aado waa tahay isagaa isoo laabtay check gadaal waa ku qasbay markaan inuu aado so waa raaca markaan waxay u dhowdahay markii la sameynayay checkmate-ka so haddaba marka intuu u baxay maxaan kugu yiri markii boqorka labada boqor saan iskugu beegman sameey wait and move hadduu uu soo noqdo waa checkmate hadduu intii madaxa halkaan saara waa dhammaatay waa iska raacaanay ilaa asiga uu soo noqdo ilaa gees kan tagaynaa sooman ugu dambeyd wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu soo noqdo waa tahay hadda wuxuu ku qasbay marka inuu soo laabto there is no option taasna waxay ku dhamaatay waa inoo casharka dambe fadlan nagu caawi inaad like siiso videoga si ay dad badan ay u arkaan subscribe noo dheh share tana dheh si aan dhiirigelin u helno adna aad videoda markay soo dhacaan aad u aragtid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa inoo baartiga dambe